السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ولاashii Sacdiye Xasan channelka anaga daawanaysan waa Ajmal channel. asxaabta intii hore ila joogtay aad iyo aad u mahadsantihiin. waan kaga mahad celinayaa sida quruxda badan ee mar walba ila joogtaan ee aad ila socotaan. inta hadda muuqaalkayga ugu horeyso channelkayga ugu horeyso waxaan ka codsanayaa in channelka subscribe saaraan gabalka furtaan si muuqaal walba u soo gaaro si share kareeyaan like saaraan waxa soo dhan waxba idin kama dhibayso. waxaa jooga isbitaal Digfaar waxaa ka soo doontay daawo marka waxaa israa wax yar video iska duub marka waxaa rabay inaan macnaha ka hadlo waan idin sheego dadku bini aadamka qof walba waa la imtixaanaa sabraan sidkiisa helay Soomaali hore u dhahay ilaahayna uu yiri inna allaha ma'a saabiriin qof kasto waxaan leeyahay maxaa la dhahay dadaal ku jira ama waxbarasho ha ahaato ama ganacsi ha ahaado ama nolol guur ha ahaato ama ilmo koris ha ahaato ay shay nolosha wax walba waxaa ku tala gashaa ama aad samaysaa inaad dul qaadato sabirto waayo wax walba ka hor imaanaya qofka haduusan waxyaabaha yaryar ee ka hor imaanaya uusan ku istaagin uusan ka gudbinin bari wax kale ma qabsan karo noloshaada hadaad inta shay bilowdo shayga aad bilowday culays ka qabsaday dartiis aad uga harto wax kale kuma guuleysanaysid noloshu way caqabado badan tahay way maxaa la dhahaa dhibaato badan tahay laakiin waxaa la rabaa in loo dul qaato qof hadaad aragtid ruux hantida lamuusan dhalanin juhdi iyo dadaal badan uga baxay hadaad aragto qof aqoon iyo cilmi leh juhdi dadaal uga baxay waxay ahaan uguma soo deganin hadaad aragto qof maamo inta ilmo korsatay ilmaheeda ay wax u qabteen wax qabsadeen horumar adduunka ka gaareen raaxo ma aysan ku korin dhibaato wax walba la martay marka hadaad hooyo tahay ee aad ilmo korsanayso u dhabar adeeg u dulqaado u sabir biri ayaga waalka ku dhaafsiinaya wallahi awlaada hadeertaan aad micnaha korkorinayso biri ayaga qeyrka ka hormarinaya hadaad ku dadaasho waxbarashadooda horumarkooda aqoontooda maskaxdooda jirkooda dhan walba aad karkareyso waxaad soo saaraysaa ubad adduunka manfacaad ku soo kordhiya dadkana wax u qabta birina la yiraahdo waalidka ku barbaariyay Allah u naxariisto ama Ilaahay ha u dambi dhaafo ma ahan wax iska kaftan iyo dhayal ah waxa kale jiro dadku qofka markuu ganacsi ku jiro taa ganacsi ku jirtid ganacsiga ku jirtid u sabir waayo ganacsiga meesha hoose laga soo bilaabo maxaa la yiraahdaa barakooda aadanaha baryo aadane waa wax aad u xun wallahi inaad bini aadan u baahataay waa nolosha ugu adag ee dunida qof soo marta qof bini aadan ah inaad u baahato oo aad wax ka sugto nolosha ugu adag ee ku soo marta waa wax ka adag ma jiraan macnaha qofka haduu Ilaahay caafimaad siiyo haduu ruuxu xanuunsan yahay xanuunkaaba imtixaan iyo dhibaato ah laakiin waxaan ku sheegayaa in aadana u baaho lagu yiraahday wax walba ee culus way ka sii culays badan tahay Ilaahay bini aadan nooma baahiyo Ilaahay hanaga dhigo kuwa adduunka aakhira ayaga wax qabsada oo aakhirana Ilaahay uu guuleeyo wixii adduunka ay ka soo qabteen uu ka ajar siiyo adduunkana Ilaahay uu cizi iyo sharaf ku nooleeyo ihaano iyo dulinimo ka hooseysa ma jirto inaad aadana adag kula mid aad sugto aad irsaaqad ka sugto aad maxaa la yiraahdaa asaga ku xirnaato marka waxaan leeyahay qof walba bini aadana dhaqdhaqaaq samay wuxuu rabo ha ahaado ay shayga aad dhaqdhaqaaqa u sameynaysid ku sabir oo aad ka soo dulqaado waad ka gudbaysaa waad guuleysanaysaa ruuxa bini aadamka ah dad waxaa jira Ilaahay uu kitaabka Quraanka ku sheegay uu ku amaanay waliba oo Ilaahay uu ku tilmaamay inay baahan yihiin laakiin waxa garanaya dadka aqliyada u saaxiibay marka qofka aad aragto ee muslim ah ee dhiban dibkiisa aan ku sheeganaynin ee diiday inuu wax isii ku yiraahdo wajigiisa ka daalaco wax si ajar fada badan ka soo galiya qofkaana kuma uu halmaamayo mid kale to waxbarashada waa waxa kaliya ee adduunka horumarka lagu gaaro maanta waana ama maadi ha ahaato ama diini ha ahaato labadaba
horumar fiican lagu gaaraa qofka hadduu diini barto dee adduun iyo aakhiro ilaahay baa hoostiisa dhigaya hadduu maadi barto maadigana uu qof diinta asaaskeedina yaqaano salaadihiisa iyo shuruud macnaha arkaanul islaamka qofka laga rabo garanaya soon hadduu soo galo soonka waxa buriye iyo waxa aan burinin fahmi kara salaadihiisa waajibaadkeeda yaqaana wixii sunanteeda iyo arkaanteeda ah kadibna maadigiisa wax ku qabsadana aadana wuu ka baahi baxaya wuu ka kaaftoomaya marka waxaa idin leeyahay xasadkana ma fiicno qof weligaa xaasid ha noqonin weligaa qof bini aadam ha xasdin ha dhibaatayn ha makrin khiyaanaha ku samaynin liannahu wallaahi waxyaabaha cuquubooyinka adduunka ilaahay qofka uu aakhirana looga jaro dee adduunkana lagu soo dedejiyo waxaa ka mid a inaad qof muslim ah ee kuu qalbi xaaran aad qalbiga ka jebiso aad been u sheegto aad khiyaanto aad dhibaatayso waa wax laga fiican yaho aan fiicnayn marka waxaa kaleetoo jiraan dadka inaysan maxaa la yidhahdaa inaysan u arkinin waxyaabaha qaar wax dhib badan qof waxaad arkaysaa noloshiisa iskaga qanacsan inuu aadano wax ka sugo inuu bini aadan wax ka sugo oo maxaa la dhahaa uu gacan aadana sugo oo markuu wax u baahdo wixii uu u baahdo hallaysiiyo uu yidhaahdo dabcan kaba soo qaad dadka qaar waxaa jiraan aan dhib ka marin waxaasaa u baahana haddii la dhaho hore layskaga siiya laakiin ma dareemaysaa qofkani markuu ku siinayo fikirka uu qabo waxaa niyaddiisa ku soo dhacay ma qiyaasi kartaa mase qiyaasi kartaa haddaad weydiiskan sii wadaay beri heerka uu istaagi karo ma qiyaasi kartid marka waxaa ku dhahayaa naftaada haddaad caafimaad qabto ood lixaad qabto uma baahnid aadanid yaa rabbi leh ilaahay gacmaha u hoorso dadaal iyo dhaqdhaqaaq sameey fadhiga ka kac waxbaro haddaadan waxba aqoonin haddaad xirfad leedahay xirfadaada ku shaqayso haddaadan aqoon lahayn aqoonta ma gabowna ma gasho da' walboo aad jirtid marxalad walboo aad maraysid dhaqdhaqaaq sameey waxbaro haddii maxaa la yidhahdaa gacan qabsi yar aad haysato ku shaqayso ha sugin aadana ha sugin gacan aadanana ha sugin aadana baahidiisana ilaahay ka magan gal ilaahay baad u baahan tahay waayo allaha kan aad wax ka sugaysa wax siiyey adiga waxba kuuma waayin waa imtixaankaa yar u sabir waad ka gudbaysaa laakiin waxaa lagaa rabaa sabir iyo dulqaad iyo waxqabad waayo ilaahay markuu ilaahay tilmaamayey adduunyada qofka waxa laga rabo wuxuu yidhi famshuu fii manaakibihaa wakuluu min risqi adduunka dhinacyadiisa marmar dhaqdhaqaaq sameey wakuluu min risqi risqa ilaahayna raadsada ma kuu imaanayo intaad guriga fadhiisato kuma soo raadsanayo laakiin haddaad dhaqdhaqaaq samayso waxaa xaqiiqo ah ilaahay inuu ku guulaynayo kuuna gargaarayo aadna ka sheekayn doonto marxaladda aad soo martay nin hadda ka hor nolosha lagu ciilay baa wuxuu yidhi baa la yidhi aadanow waa yahay gambarkaadana idinkugu fadhiya aadanow waa yahay gambarkaadana idinkugu fadhiya marka qofka la ciilaana wax qabsada xaqiiqataas ah qofka adduunka lagu ciilo oo maxaa la yidhaahdaa la tusiyo gacan aadana waxa ay tahay wax qabsada laakiin midka miskiinka ah inta gacanta aadana suga ku qancee ku jiiftaayo ma baraaruga ilaa marka dambe usha docda looga dhufto doqonka waxaa la usha dhinacyadiisaa lagu dhuftaa hadduu garan waayana dushaa looga dhuftaa markaabuu baraarugayaa markii la yidhaahdo war ha soo jeedina wax qabso markaabuu indhaha kala qaadaya laakiin qofka layskaga dhigaya in wax loo qabanayo haddana waxqabadka uusan meel jirinin wuu baraarugsan yahay kaa wax waa qabsanaya qof walba oo maxaa la yidhahdaa ama wax qabsada ama shaqaysta ama waxhaystana waxaan leeyahay shalay marxaladda aad hadda dadka masaakiinta ah kula diganaysa waad soo martay haddaadan soo marinna beri baad mari kartaa marka wejiga ha iska hadlayn sumcadda ha iska dilin dadka ha ku dhaga hadlin ha dhibaataynin qofkaad wax siinaysid lilaahi wax u sii qofkaadan wax siinaynin afkaaga ka qabso alla wuxuu yidhi
ilaahay wuxuu yidhaahday marka dadka oo sadaqooyinka baxsanaya sadaqada bixiya laga warramayey waxaa lagu dhahay oo qofka la tusinaya macnaha inuusan waxa uu bixiyo aysan waxba ajar uusan ka helaynin walaa tubdilu sadaqaatikum bilmanni waladaa qofka inuu wax ku siiyo haddana wixii uu ku siinayo uu kuu sii raacsiiyo galad sheegasho iyo dhib galad sheegasho waxaabaa qofkaa siiyey adi hadduusan kugu oranin xitaa laakiin dadka kale uu ku yidhaahdo hebel waxaasaa siiyey waxaasaa bixiyey saanaa yeelay oo mujtamacoo dhan ogaadaan waxa uu dhiibay waa bilmanni waladaa sadaqadiisi dee way burteen bilmannidii buu ku dhacay addana waxaa ah qofkaan adigoo wixii siinaya inaad warxumo raacsiiso asagaba ha ku dhihin haddaad rabtid asaga adigoo ka weji dadbanaya meelo kale soo mari haddaad tidhaahdo qofkaan maxaa la yidhaahdaa wax asaga dhibaataynaya ee sumcaddiisa dilaya ee sharaftiisa maxaa la yidhahdaa aad ku dhaawacayso amaba aad isaga dhigayso qof wax tari lahaa laakiin waxyaabo kaleeto waddooyin kale aad u soo martaa bilmanni waladaa sadaqadaada waa burta waxba sadaqa maaha waxaa haddaad wax sadaqaysanaysa adigoo aamusan ee gacantaada bidix aynan ogeyn gacantaada midig waxa ay bixisay wax sadaqayso waa karti iyo dadnimo laakiin inaad wax bixisaay wax bixinta aad wax bixisaa haddana aad ku sii darto galad sheegasho iyo sheeg qof walba adduunka daafihiisa qof walboo joogaa inuu ogaado waxaa bixisay qofka waxaa la siiyeyna dhaawac bay ku noqonaysaa adigane ajarkaagii bay kaa baabi'inaysaa waxba adduunyo iyo aakhira ajar ka heli maysid waayo adiga ma og inaa ajar ka helayo waxaadan u dhehaynin ilaahay asagaa sheegay ilaahay waxa uu sheegay annaguna waan sheegaynaa ilaahay asagaa yidhi walaa tubdiluu sadaqaatikum bilmanni waladaa sadaqooyinkiina ha ku burburinina bilmanni waladaa waxaan rabaa marka inaan intaa idinku baraarujiyo waa mahadsantihiin waxaan idin leeyahay qof walba oo caafimaad qabo dhaqdhaqaaq samee qofkaan caafimaad qabin ilaahay caafimaad ha weydiisto annagana waxaan leenahay allaahuma shfi mardaana wa marda almuslimiin warxam mowtaana wa mowta almuslimiin intaasaa idinkaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu